hadda waa macallinkii dugsigaagu tusaale yar baan ku tusaya xaqiiqduna siba isku ma qariso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا جودهان شعب كصومالي يدو ملك السوداني ذا كجوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يا أنا ونبض يا عفمات قبنا إن ربيجان ومركله دب إنه كل شيء سجى مهداسي أو يدلو سجناتي. أنت ربنا الله كدل القاضي أنت يسوق توصلتنا الله وبركيه نبينا عليه الصلاة والسلامنا أنقذ سلنا أدب ما سنتين فضلا channel ka dadku cusub tahay subscribe iyo sar muuqaalkana like tan ugu badi wixii tali tusaale qaybta commentiga ayaad igula wadaagi doontaa noo share garee oo meel noo gaarsii aad baa u mahadsantiin walaalayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago shalay muuqaal aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba meel ay joogto uga yaabiyay ayaa baraha bulshada sidii roobkii oo kale hal mar saa loogu soo fatiyay ninka halka idinkaga muuqda waa mid kamid ah macallimiinta Soomaaliyeed oo mid kamid ah madrasooyin ku yaal magaalada Muqdisho wax ka dhiga macallinkaas waxa lagu soo qabtay isagoo noocaas oo la dhaqmayo caruur yar yar oo waliba gabdha ah dugsigii uu macallinka ka ahaa dhexdeeda arinta runtii yaab ayay noqotay ama kaag ayay noqotay dad badan ayaa la yaabay laakiin ha degdegin horta arintan macallimiintii dugsigu ama madrasadaas iyo waliba qaar kamid ah waalidiintii caruurtoodu ay madrasadaas wax ku soo barteen waxay sheegeen in madrasada uu la doonayo in la dhaleeceeyo si markaas madrasada looga dhigo bu ku taal madrasooyinka Quraanka Kariimka lagu dhigay ee ku yaal magaalada Muqdisho bal wax yar baa idin sheegayay dhageysta dadkii feministiga ahaa oo waliba dumar Christian u badnaa oo qaar ka ridoobay diinteena muslimka oo mar walbaaba marmarsiyo u raadin jiray sidii ay ku caaylaayeen ama ku aflagaadeen lahaayeen meelaha macaabida islaamka ama diinta lagu barto ama culimadeena Soomaaliyeed ama macallimiinteena Soomaaliyeed markasta marmarsiyo u raadin jiray sidii ay ku dhaleecin lahaayeen maanta fursad qurux badan ayay u noqotay inay arkaan macallin Soomaaliyeed oo dugsigii uu dhex joogay ilmo yar yar oo gabdha ah sidaas oo la dhaqmaya sidii horta ma isla fiirinay macallinku ma og yahay klaaska marka uu dhex fadhiyo in kaamirad ay ku xirneed ma og yahay intaan is weydiino macallinku ma oga in halka ama klaaska uu dhex fadhiyay ee ardayda uu wax ku barayay in kaamirad ay ku xirneed iyo in kale macallinku ma oga waya macallinku sidaabay suurtagal ku tahay oo macquul ilan moogta waxa la rabaa markii wax ay dhacaan waxa la rabaa sugnaanta shay gari inuu yahay wax jira iyo in aanu ahayn wax jira inaanu ahayn waxa la rabaa inaan maskaxiyan uga shaqaysiino waxani ma sax oo arin jirta aba mise sax ma ah wax badan inaan iswaafajino ayaa la rabaa kaamirad meesha ma ku xirneed haaway ku xirneed macallinku ma ogaa inay kaamirad meesha ku xirneed mise ma aanu ogin wuu ogaa okay haddaba ilmaha yaryar uu la dhaqmayo qaabka uu la dhaqmayay ma qaab kalgacayl ilma yaryar oo inta la wadaago 6 jir iyo 5 jir ah inuu intuu saa u soo xambaaro laabta halka uu ka saaro dhudhunkado ilmuhu habadiida oo habadboodo ha soo qabto ha soo xambaare horta wixii ma fiirinay ma kufsi bay ka ahayd macallinka oo ma farafareen caruur bay ka ahayd mise ilmaha uu ciyaarsiinay horta ma isweydiinay meesha leen camera CC ba ku xirneed macallinkuna waa ogaa arinta ma isweydiinay dad badan oo ka ridoobay diinteena islaamka caadaystayna inay 24 saacadood social media u soo fariistaan sidii diinteena macaan ee islaamka ay u dhaleeceen lahaay wuxuuna uga sheegi lahaayeen maanta markay muuqaalka heleen double bay sheekadii u sii noqotay isma aanan weydiin macallinkan caruurta inuu ciyaarsiinayay iyo in kale way fiican tahay ilmaha in la baro dhaqimiyan in lagu baro yaraanta in aysan qof raga u dhawaanin waayo waa dhaqan la doonayo cunugan inuu ku barbaaro laakiin hadiiba macallinkii uu yahay ماشينا سيسي كاميرا يكون حران تاعي وحي وسيدا يلينا هل عنوغو كليغي قول اوغو حران معها ardaydi oo dhan baa wada fadhida sida muuqaalka ka arkin ardaydi oo dhan ayaa wada fadhida maamulkii madrasadu bal fiiriya dulmiga meesha uu ka jira idin sheega in madrasada lagu ceebeeyo ama lagu magac dilo ayay daliil ahaan ku tusaysaa bal fiiri arinta macallimiintu sida ay sheegeen iyo maamulkii madrasadaas iyo qaar waalidiina iyo guddigii ilan moogtay madrasa kasta waxay leedahay rag odayaal oo marjica oo guddi ah oo go'aamada ka soo baxa ama dhibaatada ka timaada ka arrimiya jira waxaan hadana si dhiib loo fiirin bohol bay nagala dhacaysaa
oo waalidiintii Soomaaliyeed iyo macallimiintii ayay arrintan iska horkeenaysaa waana sida xaqiiqdu ay tahay sida macallimiinta iyo guddiga ay sheegeen arrintan waa loo fadhiyay oo waa lagu guda jiray sidii lagu xalin lahaa oo arrintan noocaas oo kala macallimiintu in aanay ku xil dheeraanin waa loo fadhiyay guddi ahaan baa looga fadhiyay laakiin mid inkaar qaba ah oo guddiga uu middaa ku jiray ama macallimiintu mid ka mid ahaaya ayaa arrintii intuu soo dejiyay muuqaalkii barihii bulshada hal mar ku fatahiyay waa la qabtay macallinkii waa la xiray oo dambi baaristii iyo ayaa su'aalo weydiinaya hadirta waase laga yaabaa muuqaalkan markaa daawatay kadib wax badan oo ka qarsoona inay ku soo ifbaxaan wayo arrintani waxa ay shaki gelinaysaa ama ay iska horkeenaysaa waalidiintii iyo macallimiintii waxa ay shaki gelinaysaa waalidiin fara badan oo Soomaaliyeed oo ilmahooda ugu helanaa inay dugsiyo Qur'aan geystaan inay ka shakiyaan in ilmahoodii laga dhibaatay laakiin fitnadu way ka orod badan tahay wax kasta fitna haday dhacdo way ka orod badan tahay wax kasta macallinka hadda gabadha asagoo la subcinayo la fadhiyo cashir siinay hadii la arki lahaa waxba laga yaab lahaa in laga sii gudbo laakiin waxa inta loo bambooninayaa oo dad fara badan oo diinteena islaamka caayideeda caada ka dhigtay ayay jaanis iyo fursad u noqotay inay sidaa u faafiyaan sababtuna muuqaalkiiba la fidneeyay oo la kala gadiyay laakiin guddigii iyo maamulkii markay wada fariisteen waxay isla garteen in macallinkaas wax qalada aanu markaas sameeyeen oo ay ka ahayd in ardayda uu la farakar ciyaaray hadda maanta marka waxa la leeyahay maanta waxa intii wixii dhan laga soo gudbay baa waxa la leeyahay wiilasha isagoo la farakar ciyaarayo maxaa loo soo dhigi waayay marka lagu leeyahay fidnadu way ka orod badan tahay wax kasta taas cadeen kugu ah dadku inay fidna u joog yihiin oo mar walbaaba ay jiraan dad caado ka dhigtay caayda meelaha madaarista ee Qur'aanka iyo macaabida inay ceebeeyaan caado ka dhigtay ma ogtiin inay baraha bulshada noo joogaan war arinta aan ka fiirsano yaanan ku degdegin macallinka ardayda wax idin bareeyay yaan lagu degdegin caaydiisa iyo dhaleeceyntiisa macallin kalaamka Ilaahay ardayda ku bareeyay midna aan isla fahano macallinku inuu arday dhibaateeyo ama uu farxumeeyo ama uu qaarkood waalidkoodu aan ka warqabin intuu gabadha la sheekaysto gabdha qaangaara ay dugsiga dhigta mararka qaarkood aad arkaysaa intuu la sheekaysto ka dhaadhiciyo inuu guursado waalidkeedu wana ogeyn meherxada meeqa arday way buuxaan way jiraan wayna dhacdo waana la arkay ma jirtaa in macallimiin qaar kamid ah macallimiin ah lagu soo eedeeyay hadda magaalada Burco oo kale isbuuci hadartan aan soo dhaafnay arintan way ka taagneed oo macallin waxa jiray lagu eedeeyay inuu arday gabdha oo dugsiga markaa madrasada dhiganayay sida la sheegay inuu farxumeeyay oo waliba kaamirooyinku ay soo qabteen asagoo ilmihii yaraa intuu dugsi geeyay meel dukaana intuu ilmihii yaraa geeyay maxay to cabitaan u soo gadaya oo sharaab intuu u soo gaday gaari ku qaatay kaamirooyinkii markii dib loo eego waa la arkay waa taa arkayseen macallimiin fara badan oo macnaha waxa weeyaan magaalada Hargeysa ka dibad baxay oo xukunka iyo macallinkaas qaabka loo xiray ay day dulmi iyo dad doonaya inay macallinkaas dulmiyaan ama macallimiintii madaarista ay ku soo duuleen dulmina ay ugu soo duuleen isbuuc hadda aan soo dhaafnay arintaas way taagneed Soomaaliland bay ka taagneed maantana waa adinka arkaya magaalada Muqdisho ka taaganta hal arin baa idin sheegaya marka walaalayaalow dadkan caadaystay inay 24 saac duulaan ku noqdaan diinteena macaanay islaamka iyo meelaha macaabida iyo meelaha madaarista quraanka lagu barto ee Christianka iyo ridoobay diinteena ka ridoobay yeysan noo noqonin qudwo maalin walbaaba muuqaalada ay noo soo sheergareeyaan inaan ugu sacabatano arinta waxay u baahan tahay si qoto dheer in loo fiiriyo waalidiintu ay wada fariistaan ilmaha yarka way joogan waa ilmaha hadli kara ilmaha macallinku nooca madrasada ama meesha class-ku ku dhaxay waa ilmaha hadli kara taada kala damiirku sidoo ku siiya ilma yar oo da ahaan inta la eg taada kala hadana kaligeed aan ahayn oo ardayda inta la eg dhax fadhido in aad wax ka daydo sidoo damiir ku siiya wax badan baa looga baahan yahay inaan ka fikirno oo aan iska weydiino arinta yaan lagu degdegin hadda arintan dawladda gacanta ku hayso ninkii amni ahaan baa looga cabsaday macallinka amni ahaan in la dilo ayaa looga baqay dawladda iyo laamaha ammaanka gacanta loo galiyay iyaga kiiskan gacanta ku haya wixii ay ka soo saaraan oo xaqiiqa waa loo wada joogaa ummadda Soomaaliyeedna way wada sugaysaa laakiin inta ka horeysa dad caadaystay inay diintanada 24 saac caayaan
yaysan noo horseedin in macallimiinta Soomaaliyeed ee ilmaha yaryarka quraanka inoo bara iyo waalidiinta in la isoo horkeenan aad baa u mahadsantiin muuqaalkaas soo kale aan ka digtoonaano. Salaamu calaykum waraxmatullaah.